Asalaamu calaykum kusoo dhawaada 7 News Soomaaliya. Waxaa markii ugu horeysay tan iyo bilowgii mowjad nacayb ah hanjabaad aflagaado iyo eeda ah soo hadashay Silvia Romano oo axadii la soo dhaafay Talyaaniga ku soo noqotay. balse intaan u gudagalin faahfaahinta sheekadan haddii ay tahay markii kugu horeysay ee aad soo booqatid channelkan, subscribe saar kadibna furo gambaleelka si aad u heshid wararkeena iyo macluumaadkeena ugu dambeeyay. Waxaan idin weydiisanayaa inaydan xanaaqina marka aad difaacaysaan. xumaddu hadda way soo dhamaatay ayay tiri Silvia Romano oo warkan soo dhigtay barteeda Facebooka. dhammaanba asxaabtii qalbigayga ku dhawaa muddada dheer mahadsanidin ayay raacisay. mahadsanidin kuwa aynan saaxiibo ahayn balse aan macrifo nahay ama aanan is aqoon balse iga fikiriyay ayay Silvia sii raacisay hadalkeeda. dhammaan cid kasto oo waalidkay iyo walaashay u taageertay sidan gaarka ah ee lama filaanka ah waa wax aad loogu farxo, aad baan abaal idinkaga hayaa. ma sugi karaynin inaan dayuurada ka soo boodo ee aan habsiiyo dadka igu muhiimsanaa noloshayda ee aan weli dareemayo dhiiranaantooda iyo jacaylkooda xitaa anigoo dhar kale xiran ayay tiri. Silvia ayaa mowqifkeeda markala cadeysay, waxayna tiri waan faraxsanahay maxaa yeelay waxaan dib u helay dadkii aan jeclaa oo weli taagan. ilaah baa mahad leh, walow ay xanuun badan qabaan had iyo goor waxaan raacaa qalbigayga abidkayga taa bedeli maayo. waxaan idinka codsanayaa inaydan xanaaqina marka aad difaacaysaan. xumaddu hadda way dhamaatay, waa baaqaygii ugu dambeeyay, aanu hab is siino, waan idin jeclahay ayay ku soo afjartay. booliska ayaa iminka dusha sare kala socda waxa imanaya xaafadda Silvia iyo agagaarkeeda, waxaana la hubinayaa fariimaha ku qoran ubaxyada loo soo dirayo kuwaasoo ay midkood soo jiidasho lahayd. waxaana ka mid ahaa oraahihii ku qornaa marka uu jahligu qayliyo caqligu uu aamusaa, soo noqod wacan Silvia ayaa lagu qoray. dhanka kale, xilli ay weeraro takoor ah wajahayso gabadha soo muslimtay ee Silvia Romano oo xaddii Talyaaniga ku soo noqotay kadib 18 bilood oo ay ku qafaalnayd Soomaaliya, ayaa waxaa taageero ay ka heshay muslimiinta Talyaaniga. qaar badan oo ka mid ah muslimiinta Talyaaniga ayaa fariimo soo dhaweyn, hiilo, taageero iyo laabqaboojin ah qaab muuqaal ah usoo duubay, iyagoo ku celcelinaya soo noqod wanaagsan, waan ku faraxsanahay dooqaaga, aan is aragno iyo wixii la mid ah. Silvia ayaa la kulmaysa weeraro islaan nacayb ah oo baahsan, iyadoo uu xitaa baarlamaanka Talyaaniga ka tirsan xubin ka tirsan xisbiga xagjirka uu ku tilmaamay argagixiso cusub, halka uu nin kale isla xisbigaas ka tirsan uu ku baaqay in la daldalo. waxaana sidoo kale waraaqaha hanjabaada laga helay agagaarka xaafadda ay ku nooshahay ee Milano. Aisha ama Silvia Romano ayaa Facebooka fariin ugu dirtay muslimiinta Talyaaniga oo fariin muuqaal ahayd hiilo ugu muujiyay xilli ay wajahayso weeraro nacayb ah tan iyo markii ay soo laabatay iyadoo muslim ah. haddaba Silvia ayaa iyadoo u jawaabaysa muslimiinta taageerada u muujisay waxay barteeda Facebooka ku soo qortay sida tan: assalaamu calaykum waraxmatullaahi, kulligiinba allah ha idin barakeeyo. kalgacaylka aad ii muujiseen ilaah baa mahad leh, adinkuna waad mahadsantihiin. muuqaalkiinu wuxuu ii ahaa mid qurux badan oo dareen weyn xambaarsan. waanu is arki doonnaa dhaqso walaalayaal insha allah ayay tiri Aisha oo tix raacaysay muuqaal horay loo soo dhigay Laluuje. muuqaalkaas ayay ilaa iyo 50 muslimiin ah oo asal ahaan dalal kala duwan kasoo kala jeeda, da' kala duwanna jiray, waxay Aisha u jeediyeen inay la jiraan kuna soo dhaweynayaan muslimnimada iyagoo adeegsanaya kelimada guud ee soo noqod wanaagsan. muslimiinta Talyaaniga ayaa ka falceliyay weeraro dhowr nooc ah, dabaqad iyo lakab leh oo lagu ekeeyay Aisha oo iyadu shalay ku celisay in ay qalbigeeda raacday isla markaana aysan taas ka noqon doonin ama aysan ka noqon doonin islaamnimadeeda. danjiraha Talyaaniga ee Soomaaliya ayaa sheegay in uu la yaabay dhiiranaanta iyo deganaanta niyad ahaan ka muuqata Silvia tii oo ay xabisnayd 18 bilood. dhanka kale, ra'iisul wasaaraha Talyaaniga Giuseppe Conte ayaa ka jawaabay weerarada nacaybka ah ee ka dhanka ah Silvia Romano oo ah gabadhii al-shabaab laga soo daayay ee qaadatay diinta islaamka lana baxday magaca Aisha Romano. weeraradan iyo ololaha nacaybka ah ayaa waxaa badankood wada kooxda midigta fog ee nacaybka islaamka iyo dadka madow iyo warbaahinta taageerta oo ka caraysan in gabadhan ay qaadatay diinta islaamka. hase yeeshee Conte ayaa ku jeesjeesay kuwa isku dayaya inay siyaasad ahaan uga faa'iidaystaan rafaadkii ay soo martay gabadhan yar ee 24 sano jirka ah. cid kasta oo warar aan jirin ka faafinaysa, marka hore noqo 23 jir, ha lagugu afduubto Kenya, ha kugu qasbaan kuwa sita qoriga Kalashnikovka inaad maalinkii 9 saac ku socoto kaymaha. marka aad soo marto xaaladan oo kale kadibna aad soo laabato balna sii qiimeyntaada ayuu yiri ra'iisul wasaare Conte. Giuliana oo ah suxufi Talyaani ah oo
2005 lagu afduubtay Ciraaq ayaa sidoo kale la kulantay nacayb sidan oo kale ah kadib markii sargaal sirdoon oo Talyaani ah lagu dilay howlgalkii lagu soo badbaadinayay. sida cad muranada oo dhan waxay bilowdaan marka kuwa la afduubtay ay yihiin haween. cidna kama ashtakooto marka madax furashada laga bixiyo nin ama meelaha oo kale ay raggan aadaan, balse marka ay tahay haween waa marka aan ka daba qaylino, ayay tiri. wargeyska xarunta Vaticanka ayaa sidoo kale cambaareeyay weeraradan aan bini'aadamnimada ahayn ee ka dhanka ah Romano, wuxuuna dalbaday kuwa cambaareynaya ay marka hore ka fakaraan silaca ay soo martay gabadhan. xurriyadda Silvia waa inay keentaa farxad, ma ahan wax kale. hase yeeshee go'aan gaarista degdega ah iyo weerarada xun ee ka imaanaya dhinac kasta oo dalka ah ma ahan inay naga weeciyaan wixii ay gabadhan yar soo martay, ayuu qoray wargeyskan Arbacadii la soo dhaafay. dhanka kale Franco Cardini oo ah taariikhyahan si gaar ah ugu xeel dheer sooyaalka ahdiyadii dhexe ayaa sheegay in islaamku uu si cad u diidayo in qofka qasab lagu muslimiyo. mar uu arrintan Caaisha xog ka siiyey La Stampa, Cardini ayaa sheegay in Silvia ay u islaamtay in ay dan ku aragtay xabsiga ku moodaysay amaba ay si daacad ah u qaadatay, hase yeeshee aanu marna aaminsanayn inay qabto jirada Stockholm syndrome ee uu qofku jacayl aan waaqici ahayn isaga qaado qofka qafaashay ee haysta, taasoo ah war ka soo yeeray dhowr qof oo caan ah oo Talyaani ah. Cardini ayaa sheegay in haddii ay sidan tahay aysan ka muuqateen farxadda iyo xoogga ka muuqday, isla markaasna si jacayl ku jiro hab diiran uma siiseen qoyskeeda iyo dadkii ay jeclayd kadib markii ay muddo moogayd. wuxuu soo jeediyey inaan lagu fogaanin oo u qiildayida ama u micno samaynta sababta sirta ka dambeysa muslimnimada Silvia Romano. waxaa markaa ku xadgudbaynaa sirta ka dambeysa ama sirta ka dhaxaysa qof kasta oo naga mid ah iyo nafsadiisa gudaheed, taasoo runtii ah wax ay diintu u taagan tahay. waa dhinac shakhsi ah ay adag tahay in la sharaxo, balse ka dhaxaysa qofka iyo waxa uu aaminsan yahay, ayuu yiri Cardini oo soo jeediyey inaan dhinaca la aadin. wuxuu falanqeeyey in diintu ay tahay hab dhaqan ruuxi ah oo qaabeynaya dareen kasta iyo micno kasta oo looga quusto in sharaxaad loogu helo nolol maalmeedkeena caadiga ah, si xal looga helo qanaaco la'aanta, niyad jabka, quusta iyo qabyada ka muuqata jiritaankeena. wuxuu sheegay in Silvia oo markii horeba ahayd qof Afrika oo ah meel ka mida kuwa ugu diihalsan dunida u tagtay si ay dad insaan ahaan u caawiso, ay kadibna maalmo badan oo aamusan xabsiga ku dhex qaadatay, kadibna ay quraanka ka heshay micno iyo xasilooni aan ka jirin galbeedka oo ay dadku lumiyeen xiriirkii ruuxiga ahaa, taasoo ah micnaha diin dhab ah. waxaa laga yaabaa inay ogaatay oo ay aqbashay in Allahu Akbar aysan u taagnayn in dadka lagu xasuuqo, balse ay jirto dhinac uu sahankeeda naga hortaagan yahay qaabkeena iyo kibirkeena, ayuu yiri Cardini oo sheegay in muslimnimada Silvia oo aysan waxba ka ogeyn isla markaasna aanay doonayn inay wax ka ogaadaan ay micnaha leedahay. annaga cashar ayay noo wada tahay, ayuu raaciyey. waa sidii uu lahaa xeeldheerihii cilmu nafsiga ee Sigmund Freud oo bilaa diin ahaa, balse yiri qabku xitaa guriga uu degan yahay isagu ma lahan. tusaale waxaad haysan kartaa hanti qurux badan, mansab, jaah, balse midkoodna adigu ma xukuntid mana go'aamisid. dhanka kale Cathy Latore oo ah gayfane ka ololaysa midabta koorka iyo sinjiquursi una dhalatay Talyaaniga ayaa boggeeda Instagramka ku faafisay sheeko xiiso badan oo dood cusub abuurtay, taasoo muujinaysa munaafaqada lagu wajahayo Silvia Romano iyo islaam qaadashadeeda, iyadoo sheegtay in loo maagayo in ay haween tahay oo qura. sanadkii tagay oo qura waxaa soo islaamay 3 qof oo Talyaani ah oo ay sii daayeen afduubayaal haystay, waxayna kala ahaayeen Luca Tagetti, Alessandro Sardini iyo Sergio Sanotti. qofka koowaad wuxuu aaday Afrika, waxaa Burkina Faso ka afduubtay kooxda argagixisada ah ee Jinim oo xiriir la leh Al-Qaacida kadib 15 bilood oo ku beegnayd bil uun ka hor. wuxuu qaatay diinta Islaamka, ma jirin hal qof oo dood yar ka keenay, ka cawday ama ka hadlay. qofka labaad waxaa xadka Turkiga iyo Suuriya ku qabsaday koox fulisa dembiyada agaasiman, waxaana halkaa lagu haystay 3 sannadood. waxaa lagu sii daayay wadaxaajood. wuxuu qaatay diinta Islaamka, mana jirin qof dood ka keentay, u dhaaratay ama dooqiisa ku qosashay. qofka saddexaad waa ganacsade Turkiga u tagay in uu soo iibsado diinaarka qadiimiga ahaa si uu Yurub ugu sii iibiyo. waxa uu 3 sano u afduubnaa Al-Qaacida. waxaa lagu soo furtay wadaxaajood, sirdoon iyo diblomaasiyad.
wuxuu qaatay diinta islaamka mana jirin hal qof oo xitaa soo hadal qaaday. waxaa halkan taagan 3 nin oo Talyaani ah oo ay sheekadooda la mid tahay midda Silvia. ma jirin qof maagay ama ka hadlay waxa ay guursadeen, waxa ay soo mareen iyo waxa ay sameynayaan. aanu runta isu sheegnay soo ma ahan in Caaisha lagu maagayo in ay dumar tahay.